that wax ka fog waa macallin that wax ka fog waa correct okay correct okay marka oo mufrad Soomaali mufrad yeah wax ka fog oo mufrad Soomaali wax ka fog oo keli ah marka hadii wixii ay ka fog yihiin hadana ay jamac yihiin sidee u dhahaysaa Yusuf hadii jamac yihiin wixii ay ka fog yihiin waxa waaye those yeah yes those are صح those are صح those ayaa صح those hadii jamac yihiin ay ka fog yihiin those ayaa leedahay and I think Rahma is with us tonight also we have Halima Shire and Rahma and what happened last night you were not in class what happened you were affected by the internet yes sir okay so you live in the southern part of Somalia Mogadishu yes you live in Mogadishu Halima also you live in Mogadishu right yes okay I think now your internet's back you are happy right problem your internet yes very good okay so yes xiisad waa la qaatay xalay xiisada jirtay marka dhanka Soomaaliya ilaa qadka ka leeyahay dhanka kale waa u shaqeynaya gaalkacyo dad ka soo galay Garowe Somaliland dhankeeda halkaas Hargeysa Boorama dadka waa fiicnaayeen dhinaca Muqdisho labisa cilada ka jirtay galabtay barakoy 10 saac qadka si sax ah ugu shaqeeyo okay السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته and we have Hussein Abdi أو Ali in session xalay qadka naga maqnaayo dadka qadka dhibaato ku qabiyana waa dareemay marka xalay 10 aan qaadanay groupka ayaan ku soo diray ma aragteen 10kii masuuli ma arkin Muqdisho laabis ما fiirin waa arag natiijo laakiin hal anaga ka qanaaqnay laakiin 10kii xalay waa inaga maqnaa laakiin waa idin soo duubay marka waxaan rajaynayaa inaad ku laaban doontiin oo fahmi doontiin 10kaas okay insha Allah waa ku laaban doonaa wana fahmi doonaa waa aragnay insha Allah marka haddana waxaan su'aalo weydiinaynay ardayda qaarkood Cabdiraxmaan I mean Yusuf present progressive tense maxaa ka fahantay present progressive tense ka dhacdada waqti xaadirkaas dhacaysa maxaad ka fahantay waxaan ka fahmay waqti xaadirkaas waxa dhacay waxaan ka fahmay maxaa la sameeyaa maxaa lagu daraa present continuous tense maxaa lagu daraa qaabka maxaa la raacaa ing dhahdaa ayada way cunaysaa ayada waxay cunaysaa quraac ayada waxay cunaysaa quraac she's eating breakfast that's correct so marka present continuous tense-ka waqti xaadirkaas dhacdada dhacayso isla waqtigaasi waxaa loo isticmaalaa verbka waxaa lagu daraa ing and she he and it waxaa macnaha sentence-ga markaad dhisaysid aad isticmaalaysaa is inta soo hartayna oo you we they waxaa u isticmaalaya are ayadana waxaa u isticmaalaysaa am so waxaa leedahay I am eating breakfast waxaan cunayaa quraac we are eating breakfast waxaan cunaynaa quraac they are eating breakfast waxay cunayaan quraac you are eating breakfast waxaad cunaysaa ama waxaad cunaysiin he is eating breakfast waxay cunaysaa quraac he is eating breakfast it is eating okay so marka
tensiga oo waqtida dhacdadaas isla waqtigaas dhacayso in badan la isticmaalaa waxaan rajeynayaa cashirka marka ku laabadiin inaad ka bogan doontiin hadduu ilaahay idmo marka sidaas xalayna waxaan sharaxnoo kale habeen hore aheeda waxaan maleynaa waxaan sharaxnay su'aalihii la isku dayay so waxaan ka bilaabaynaa what kind of ayaa laga bilaabayaa caawa okay marka what kind of waxaa u isticmaalaysaa markii aad rabtid marka aad rabtid inaad dhahdo wax noocee ah okay macnaha waxbaa lagu sheegay asaa leedahay what kind of wixiias iyaga aad sii weydiinaysaa inaad sii ogaataa maybe waxaan ku dhahay I want to drink juice waxaan rabaa inaan cabo cabitaan markaas waxay leedahay what kind of juice do you want juice noocee ah ayaad rabtaa what kind of you know marka what kind of wixii aad weydiinaysaa okay marka su-aasha ugu horeyso oo la isweydiiyey waxay ahayd what kind of breakfast okay what kind of breakfast okay briefcase I'm sorry what kind of briefcase briefcase waa boorsada gacanta okay marka briefcase noocee ah ama boorsada gacanta oo noocee ah ayaad macnaha uu qofka weydiiyey markaas waxaa leedahay a leather one midda maqaarka ah which briefcase haddana briefcase-yada maqaarka badan ama su-aasha waxay noqon kartaa which briefcase boorsadee ayaad ka hadlaysaa marka wuxuu leeyahay the black one midda madowga ah marka for example su'aala dukaana imaatay waxaa dhahday I want a briefcase waxaan rabaa boorsada gacanta marka wuxuu ku leeyahay what kind of briefcase boorsada gacanta oo noocee ah ayaad rabtaa marka waxaad tiraahday the leather one waxaan rabaa midda oo maqaarka ka samaysan a leather waa maqaarka wax ka samaysan leather maqaar ka samaysan a leather one midda maqaarka ah marka boorsooyinka maqaarka kala duwan markaasaa tiraahday which one specifically which briefcase or which color marka wuxuu ku leeyahay the black one midda madowga ah which kind of gloves gloveska kuwa gacanta la gashada ayaa loo yaqaanaa gacmad gashidka marka gloves noocee ah ayuu ku weydiinaya marka waxaad leedahay cotton ones the cotton ones midda suufka ah cotton waa suuf dadka microfonka xirta bilis waxaa u furan yahay microfonka xaliimo bis xaliimo microfonka isku day inaa xirato which gloves gloveske the cheap ones kuwa raqiista ah the cheap ones kuwa raqiista ah okay what kind of briefcase will you like boorso noocee ah ayaad jeclaan lahayd what kind of briefcase boorso noocee ayaad jeclaan lahayd a cheap one mid raqiis ah oo jawaabta noqotay which gloves are expensive kuwee gacmad gashidka gloveske ayaa qaali ah the beige waxaa loogu dhawaaqayaa beige okay the beige ones beige waxaa lahaa kalarka noocan ah ayaa loo yaqaanaa beige xalay kalarada ayaan dhiganay sidoo kale marka kalarkan hadda aan gacanta idinku tusayo ayaa waxaa loo yaqaanaa the beige okay so xalayna kalarada waa dhiganay waxaan rabaa cashirkaas muhiim waa lagu laabto iyo dharka noocyadiisa marka wuxuu ku jawaabay midaas oo beige-ka ah ayaan rabaa which shoes will you like the black ones or the brown ones okay which shoes kabahee will you like ayaad jeclaan lahayd the black ones kuwa madowga ah or the brown ones kuwa brownka ah miyaad qabi lahayd marka wuxuu ku jawaabayaa qofkii la weydiiyey su-aasha the black ones
okay materialka ay wax ka samaysmi karaan waxay noqon kartaa labo leather oo ah leather horaan kusoo sheegay leather waa maxay maqaar waa maqaar maqaar marka anything oo maqaar ah you can call them leather okay and the cotton qofka la rabaa cotton waan soo sheegnay cotton waa maxay cotton waa suuf suuf okay wool suuf waa tija yes correct wool waa dufta ama ayadana hore uma soo sheegin waa dufta idaha oo kale laga guray oo carlika ahaa wool loo yaqaana wool so intaan oo material wax laga samayn karaa so marka adigoo materialka yaqaana haddii su-aasha lagu weydiiyo which shoes aad rabtaa waxaa leedahay I want the leather one okay so marka wixii su-aasha ka jawaabaya iyo cotton marka kabo cotton ma noqon karaan oo dharka oo kale cottonka iyo woolka laga sameeyaa sax so asking about sizes and prices asking about sizes and prices in la weydiiyo wax ku saabsan size waa jin waxyaabaha oo dharka oo kale size cabirka oo kaleeto in wax laga weydiiyo ama prices iyo qiimaha ay joogaan okay what size is it what size kee which is it how much is it imisa ayay joogtaa marka waxaa leedahay size-ka sheegaysaa it is size 6 waa cabirka ama size-ka 6 how much is it imisa ayay joogtaa qiimaheeda $25 waxay joogtaa $25 okay pronunciation plus pronunciation waa ku dhawaaqista plusna waa extra marka ku dhawaaqis dheeraad ah camal adoo dhahayda macna noqonaysaa so inta waxaa lagu barayaa lacagaha qaabka loo aqriyo 100 cents waxay u dhigantaa equal waxay u dhigantaa $1 $1 ayay u dhigantaa 100 pence oo lacagta waxay u dhigantaa 1 pound ayay u dhigantaa okay marka lacagta poundka jajabkeeda waxaa loo yaqaanaa pence lacagta dollarkana jajabkeeda waxaa lahaa cent okay so marka 5.95 marka akhriisi tiradan waxay noqonaysaa $5.95 ama or waxay noqonaysaa $5.95 $5.95 ayay noqon kartaa sidoo kale tan marka akhrinaysid waxay noqonaysaa 15.80 ama waxa u aqrin kartaa 15 pounds 8 pence 15 pound iyo 80 pence jajabkaasaa loo yaqaanaa pensiga lacagta oo poundka la socoto I will take it waxaan rabnaa inaan qaadano wada sheekaysi ku saabsan waxa loo yaqaano I will take it waan qaadanayaa sentencega I will take it wax ku saabsan so marka waxaa wada sheekaysanayo sales person qofkii wax gadayay iyo customer iyo macmiilka may I help you yes how much is this necklace $275 how about that one this one yes let us see this one is $89 will you like to try it on yes thank you oh it is very nice I will take it marka sales person qofka wax gadaya lahaa iyo customer iyo macmiilkii soo doontay alaabta
May I help you? Miyaan ku caawin karaa? Yes. How much is this necklace? Imisa ama meeqa ayay joogtaa? Necklace waxaa loo yaqaanaa silsilada qoorta la gashto. Silsilada qoorta ayaa necklace la dhahaa. So marka sales personkii wuxuu ku jawaabay $275. Waxay joogtaa $275. How about that one? Ka waran meeqa waa midaasna? How about that one? Taasna waa imisa camal adoo dhahay waa taas mid marka that wax kaa fogaa loo isticmaalaa. Marka wuxuu ayada u dhowdahay qofka sales personka marka waxay leedahay this one ayadoo farta ama soo qabanayso this one taniya matana wuxuu leeyahay yes ha let us see aan fiirino. So meesha qiimaha laga fiirinayo kale aaday marka waxay soo ogaatay qiimihii waxay leedahay this one is $89 tani waa $89. Will you like to try it on? Miyaad jeclaan lahayd inaad isku fiirisid? Yes. Sorry. Will you like to try it on? Miyaad jeclaan lahayd inaad isku fiirisid, isku jimaysid? Okay. Try it on waxa waaye inaad isku eegtid, isku fiirisid. Okay. Isku broweysid. Customer wuxuu dhahay marka yes, ha, thank you, mahadsanid. Or Allah, it is very nice. Aad bay u fiican tahay. I will take it. Waan qaadanayaa. Okay. Very good. Waxaan rabaa one of the students inuu noqdo sales person, another student inuu noqdo customer, and that way read. Me teacher. I'm ready. Okay. The sales person waxaa noqday Yusuf. Hafsa. We need to be gender balance. Waa inaan isla ekeenaa. Genderka waa inaan isla ekeenaa. Okay. Gender balance. Marka Hafsa iyo waxaa hadlayay Hafsa iyo Yusuf hadlayay. Okay. May I help you? May I help you? May I help you? You are a customer. Yes. Okay. How much is this necklace? $275. How about that one? This one. Yes. Let's see. This one is $89. You would like to try it on? Yes, thank you. Oh, it's very nice. I will take it. Okay, that was very good. That was very good and very nice. Thank you for reading. Finish, man. I also want two students to read again. Abdulaziz, are you ready? Yeah, teacher. Abdulaziz and Maulid. Abdulaziz and Maulid. Yes, teacher. Abdulaziz, you are the salesperson. Yeah, okay, teacher. Go ahead. May I help you? May I help you? Yeah, how much is this necklace? $275. How about that one? This one? Yeah. Let's see. This one is $89. Would you like to try it on? Yeah, thank you. Oh, it is very nice. I will take it. Okay, that was very good. And I want also Rahma and Halima Shire to read, okay? Rahma and Halima Shire, you read. Rahma, you are the salesperson. Rahma, we are not leaving any students tonight. Everyone must read. I am customer. Yes. A student is big. And I want, where is the other student? Where is the other student? She left? Okay.
Hussein or Ali. Hussein or Ali. Can you be the Yes. salesperson? Be the salesperson. hello Yes, hello. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. بوضع عبركي بعد And May I help you? Halima Akri. Halima Akri. Good job. Halima, may I help you? Ay Rahma Akri ama Halima Shiri qofa aqriso labadiina. May I help you? I'll weydiiyo waxaa leedahay yes, how much is this necklace? Inaa saas dhahdan rabaa. Okay, and let us go on. And I want to talk to Hussein or Ali. And you can ask me the question, I will answer, okay? Go ahead. Okay, may I help you? Yes, how much Okay. is this necklace? yes how much is this How about that one? No, waa ka booday des 275 maadaa dhahayba. Yes, yes. adiga La sales ilaha person ka tahay marka qofna wuxuu noqonaa customerka. So marka Okay. marka Sales dhacdo may I help you qofkan u sug inuu ka jawaabo qofkan kadib. Okay. Okay, may I help you? Yes, how much is this necklace? Yes. How much is this necklace? $275. How about that one? How about that one? This one. Yeah. Yeah. Let's see. This one is 89. Will you like to try it one? Yes. Thank you. Oh, it is very nice. I will take it. Thank you. Okay, very good. That was good Thank you. trial. That was good trial. Okay. So we have tip here. May I help you? It's also, you can also say, can I help you? Okay. If you are at the shop and a customer comes and asks, when you see the customer, you go to him and you ask him, may I help you? Ama waxaa leedahay, can I help you? Okay. Marka labadoodaba waa dhihi kartaa may I help you macnaha aad u jilicsan oo macnaha polite saa'id ah. Okay. No thanks may waa mahadsan tahay, just looking waan fiirfiirinaya oo keliya. Dadka dukaanka iska soo galo oo wax fiirfiiriya camal waaye, ma fahmino? Just looking waan fiirfiirinaya. بعدال الله. Do you take credit cards? Do you take credit cards? Miyaad qaadatiin kaararka ma aqbashiin? Macnaha lacag ma ku qaadatiin? Yes, we do. Do you accept American Express? Miyaad aqbashiin American Express? Marka dukaanaa soo gashay, cash ma wadatid, kaarkii bankiga bisaa wadataa. Marka waa inaad su-aasha weydiisaa oo dhahdaa, do you take credit cards? Marka asiguna wuxuu ku leeyahay, yes, we do. Yaa xasuusto cashirkii ka horreeyey oo tensiga, present simple tensiga aan dhiganaynay, waxaan baranay do sida loogu weydiiyo su-aasha iyo daas. Sidoo kale sida loogu jawaabana waa baranay. Marka do iyo daas waxaan xasuusanaa do maxaa loo isticmaalaa, goormee la isticmaalaa do, pronounkee lala isticmaalaa. Yes. Do waa macalin questionka imaata loo isticmaalaa Question markay imaataa la isticmaalaa. you. Marka goormee do iyo daas goormaa isticmaali kartaa? Daas hadda maxaa loo isticmaali waayey oo do loo isticmaalay? Dash waxaa loo isticmaalaa tija he, she, it baa loo isticmaalaa. That's correct. Very good. And do-na maxaa loo isticmaalaa? Duna waxaa loo isticmaalaa we, they, you waa loo isticmaalaa. Ayna waa loo isticmaalaa. Correct. Ayna loo isticmaalaa.
isla marka su-aasha weydiinaysid waxaa ka bilowday pronounkia laga bilaabay waxaa laga bilaabay do ama daskia laga bilaabay dudi kadib pronounkia ku xigsaday verbkia ku xijisay su-aalay saas ku noqonaysaa marka do you take credit cards miyaad qaadatiin kaararka bangiga credit cardka allaha yes we do yes we do waan aqbalnaa ama waan qaadanaa su-aal kale maya waan samaynaa ma noqonayso we do camal macnaha kaarka ma qaadatiin waan qaadanaa camal adoo dhahay waayo okay? Do you accept American Express miyaad aqbashiin American Express marka waa qayb kamid ah kaararka magacooda marka wuxuu soo tirinaa intay aqbalaan wuxuu leeyahay American Express Visa a Mastercard okay so on the phone and this one we are skipping and it has no importance okay so then qaybta Quran waa qaybteen okay Mrs. Almeida is calling she's calling where a sweater company on Land's End she would like waxay jeclaan lahayd a true red skirt a sweater she's ordering a large size a small size she's given her address her phone number she's paying by credit card. Is this exercise? This is not an exercise. This was supposed to be something else, but we are skipping now. For now, we are not working on this one, okay? Skip that part. Okay. So the exercise I want to give you is number 1. You are going to tell me and the color. I'm going to ask you a few questions. And which is your favorite color? Can someone tell me what is your favorite color? Red. Red. My favorite color is red. Red. Your favorite color is red. Okay. Someone else? What's your favorite? It is red. Your favorite color is also red? My favorite color is red. Is red. Another one? My favorite color is green. Is green. Yeah. Okay. Another one, which is your favorite color? Yellow. Yellow. Okay. My favorite color is blue. I like blue color. What is the size of your shoes? The size of your shoe? Do you know? It's 45. My shoe is like 45. Your shoe size is 45. Yeah. You must have a big feet. You must have a big foot. Yeah. My shoe is 32. Your shoe is 32. You have a very small foot. Okay, do we have 42? Do we have 42? It is long. 42 says shoes. Mine is 42. My shoe size is 42. Teacher, my shoe size is 42. Okay. What is my shoe size is 41. It's 41. Yeah, me. My shoes is 42. 42. Okay, we have the same size. We have the Really? Yes. It is same shoes. It is same size. I can borrow your shoe. I can borrow your shoes. Okay, I can borrow your shoes. Yeah, it's same size.
What is the size of your trouser? What is the size of your trouser at the waist? The size of your trouser at the waist. My size trouser is 30. 32. No. My butter is like large. Okay, mine is And- 34. And Yes. Hello. Go ahead. Rahma, I think you are having a little. cilada caawa dhankaaga waaye ardayda waa isla wada sheekeysanaynaa cashirka si fiican ay ugu jiraan marka taleef waxaa u dhawaataa meesha wifi-ha kuugu jiro guriga wifi-ha qaybta wifi-ha u dhawow haddaa isticmaalaysid daatana 4G-ga furo dabaqa full 4G-ga furo 4G-ga no front teacher. On front of 4G-ga wada. waa ismaqlaynaa adiga Soomaa Raxma xoogaa ismaqli laanahay inaa 4G-ga furata iyo inaa wifi-ha hoosta ka fadhiisto ama wifi-ha hadduu halaysan yahay aad damisid daartid I am listening. So I was asking about the trouser. What is the trouser size? Yeah. Yes. My trouser size My trouser size is 34. 36. 34. Okay, 36. You must be very fat. You are fat. You are a big man. Yes. Teacher. Yeah. Teacher. What's Yes. your trouser size? What is your trouser? Mine is 34. I'm also very 34. big. Yes. Oh, Oh, teacher. my teacher is Teacher, very. that's unbelievable. My trouser is 34. My trouser is 34. And also your shoes is 42. And also my shoes is 42. We It's are the the same. same size of We have the same size of trouser. That's How- unbelievable. How That's many? unbelievable. Okay, let us see how many kg are you? Your weight. How much? What's your kg? How many? Do you know your weight? Your weight? 65. No, it's not possible. You can't be 60. And also, Mine is 75. oh, Very big. That's big difference, right? Oh. Yeah, that's big difference. And I'm sure we have Nadia. really? Nadia, what is your shoe size? Can you tell me, Nadia, what's your shoe size? 40. 40. Yeah. Okay, that's good. You have small, Oh, you have a big foot, right? his big shoes. They Teacher, Yes. what's the size of shirt? My shirt is I usually take a large or large size. What? You know the shirt has an L, XL, XXL, right? Triple X Mine is L. or My shirt or is double L. X? L, man. It's not double X. It's only Double L. It's only L. Teacher, Yes. This question teacher, is your shoes same and also Shoes- trouser is same. Also, Yeah. the shirt. Listen me. Uh-huh. Listen me. The Good. shirt is same. Trouser is same. Uh-huh. Also, shoes is same. Yeah. But the weight is different. Only but the weight is different. That's unbelievable. But I think you are very, very short, right? You are not tall, right? You must be very short. No, I'm tall. I am tall. What's But your the height? weight is What's your height? less than it's a less than, but the weight is less than your weight.
What's your height? Okay. What's your height? Okay, I'm asking the question. You understand me? Yeah, I have understood. Now let us ask a question about the. I want to ask some questions. Yes. So let us ask about Hafsa. Hafsa, how are you? Yes, teacher. And you told us you have a small foot. Your shoe is 32. Is that true? No, it's 39. Oh, that's okay. Yeah, that's correct. Now 32 even is for small kids. Yes. Okay, that's good. Okay, and I want you to, inshallah, do this assignment and talk about colors and clothes. You tell me what color and what clothes they are wearing. You can also answer this question here. Can I help you? You just say anything. Yes, I need this one, or I'm just looking over the phone, and you can request something over the phone. May I take your order? You just tell them I want to buy this and this and that. Okay. And inshallah, we will start chapter 5 from the other book. Okay.